iyadoo aan safar shaqo ugu maqnayn waxa ugu muhiimsanna ay ahayd bal xaaladan colaadeed ay ka taagan gaalkacyo oo maanta aan maqlayo in dagaallo kulul ay ka socdaan sidii xal nabadeed looga gaari lahaa aanan samaynay gogol inaan dhigno Kismaayo Jubbaland xarunteeda ku meel gaarka gogol la dhigo la isu keeno dadka guud ahaan ay khusayso xaaladda arrintaasi waxaan rabaa inaan baaq ka soo jeediyo arrinta Kismaayo arrinta dagaalka gaalkacyo ka taagan waa dagaal nasiib darro ah oo aan la garanaynin macno uu socdo waxaan ka codsanaynaa darafyada dagaalkaasi uu khuseeyo in la joojiyo dagaalkaasi isagoo wax shuruudi ku xidhnayn waxaa weliba rabaa inaan aada uga codsado labada madaxweyne ee labada dowlad goboleed iyo odayaasha dhaqanka iyo saraakiisha iyo waxgaradka reer Puntland iyo Galmudug inay joojiyaan dagaalkan aan raadka lahayn ee taariikhda lahayn ee macnaha lahayn ee wuxuu u socdaan la garanayn waxaa hubaala gaalkacyo waa gaalkacyo way soo ahayd wayna sii ahaanaysaa dadka wada deganna way degan yihiin wayna soo deganaayeen wayna deganaan doonaan cid kasta oo hawshaas maanta saamayn ama lug ku yeelata ama arrintaas sii shidana isagoo mataariikh xumo ku noqonaysa sidaa awgeedba waxaan leeyahay inta mas-uuliyiinta ah ilaahayna ha uga cabsadeen dagaalkaas iyo barakacaas iyo dhibaatada dadka soo gaadhaysa hana isku dayeen in la badbaadiyo dadka inta hadhay barakaca la joojiyo waxaana rajaynaynaa hadday kaliftana inaan inta ka horeysa intaas guddi u diro reer Jubbaland oo aada halkaas oo waxgarad iyo oqaal iyo odayaal iyo mas-uuliyiinba leh inta kale Soomaalida samaha jecel aan ugu baaqayno weliba inay ku soo biiraan hawshaana degdeg looga howlgalo haddii la yidhaah waana ugu baaqaya waana ku celcelinaya mas-uuliyiinta reer gaalkacyo iyo mas-uuliyiinta labada dowlad goboleed ee Galmudug iyo Puntland labaduba labada madaxweynena inay qaadaan mas-uuliyadda waxa dhacaya ay ogaadaan beri amaam Allaahina in la weydiinayo waxaana ay mas-uuliyad noqonaysa inay noqonayn wax la iska waxaynayo intaa markaan ka soo tago muhiimadda safarkeegu taasaa ugu muhiimsaneyd wallahi warar badan oo maqlaya ay jiraan oo doorasho iyo campaign iyo siyaasada iyo wax badan oo laga hadlayo horta waxaad ogaataan Soomaalida u taala arrinta doorashadu cidda madaxweyne noqon Soomaali bay u taala Soomaalida ka tashan horena uga tashan jirtay waxaana ilaahay mahadiyeen wax kastoo banaanka lagu soo dhoobtaba iyo wax kastoo laga hadlo baarlamaanka iyo marka la gaaro iyo sanduuq wajigu noqon doono ilaahay baa laakiin shayga asalkii waxa weeyaan inaan Soomaaliya banaan cid looga keeni karin banaanna wax lagu soo dhisi karin waxa wax dhisanaya ama wax yeelanayana iyaga ay yihiin Soomaalina iyadaana waxay ka tashanaysa marka arrimahan kale inta badan aan arkaya saxaafaddu inay aad ugu mashquusho waxaan aad ugu talin lahaa in la iska daayo la ogaado waaqac dhabtii waxa uu yahay iyo Soomaali maanta xaaladda ku jirto Soomaalina maanta waxay u baahan tahay xaaladda ku jirto inay hore uga socoto hadduu noqonayo mid hayay hadduu noqonayo mid cusub hadduu noqonayo mid Soomaali oo haddana anaa dardar gelinaya waa nin iyo nasiibkii waxaana isleeyahay qof walba intuu soo miisaan isa saaro anigu waan ka soo waxma soo kordhin kara waxma soo kordhin karo waxa fiicnaan lahaa dadku inay iswada yaqaanaan oo si yaqaanaan qof walba sida uu yahay oo uu garan karo noqdada ducfigiisa ilaahay anu halkaa ma gaari kariyo waa gaari karaa oo ka hadla dowladaha aan soo maray haddii ama imaaraadka la yidhaahdo oo hadda inta badan hadalka lagu hayay imaaraadku dee waa dowlad Soomaaliya saaxiibna la taariikhi wax walbana lahaa waxbana naga caawinaya waxa ugu muhiimsan lahayd inay gobashaana fududeeyaan gaalkacyo arrinteeda lagaga hadlayo taa horena ay fududeeyeen dee wax dan gaaroo hadda aan odhan karo waxaas idinka lahayna arrintaasina inayna jirin laakiin dadku Soomaalidu xanta iyada dhexdeeda ah iyada ha ku koobnaataan odhan lahaa oo waxqabadkeeda iyo iyada waxtarkeeda iyo waxay samaysanayso
iyada dhexdeeda inay noqoto asala taa marka waxaan isleeyahay intaasaa nagaga filaanaysa insha allahu doorashada aad baa loo tiigsanayay qolyaha shalay bilaabay jubbaland waxaan rajeynaya inay ka bilaabmi doonaan sababtoo ergooyinka hore u xaraysnaayeen horadaan uga hadalnay dadku war xilkas doorta qof wax idinku soo biirin kara doorta ka lacagta la ordaya iska tagdhaha ka waxba keenaynin waxba codhasiinina intaad laaluushna bixiso ood laaluush qaadato oo dhib kale soo waxaysato inay intaan arkeen dhibi kusii gaadha waa wax iska adag waxaan maqlaya kuraasta qaarkood meelo deegaanada soomaaliya ka mida 1,500,000 kuraasta qaar baa qiimahoodu gaadhaya xaggee loo wadaa ma nin shaqadayda aad maraysaa mushaar soo gelaya in 1,500,000 kursigu ku raadinaya xaggee beri geynaya oo wax u baahan in kuraasta noocaa lagu raadinayo waxaasoo dhan dib loo fiiriyo looga xisaabto waxayna tahay marka arrintaas ilaahay aan na waafajiyo aan ku dadaalo waayahan waxaa aada u socotay waliba maalmahan tegaya buuq jirayoo kuraasta la isku haysto gabdho loo yeelay oo kuraastaas gabdho waa muwaadiniin soomaaliyeed xaq bay ku leeyihiin way mudan yihiin haddii loo garan waa raggu u garan in kursi la siiyo in loo calaamado lahaa kursiga gabadh baa iska leh tacaab ma aha dhibna ma aha annaga reeban haddaan nahay maxaa looga jeedaa kursiga annagii gabadh baa bilcaan baa la siiyey gabadh baa la siiyey kanaa la yeelay qolalahayd waan ku dacweynaynaana weyba jiraan kuwa waxaan kula talina inay dacwada aada u badiyaan oo dacwadaa la badiyo gabdhaha nacabtaada igu wareeriyeen doorta hala arkay gabdhaha laga dacwoonay